anshaxa 12aad waa waqtiga waxaan ku buuxinaa wax anfac noo leh. bar ilmahaaga oo ku caawi samaynta mudnaanta ay hawshu kala leedahay. tusaale ahaan, marka hore qolkaaga soo hagaaji, tan xigta cashirkaaga samee, tan dambe ciyaar tag. ilmaha yaryari ma fahmi karaan waxa mudnaanta leh, laakiin weli waad bari kartaa, waadna tusi kartaa fikrado ku saabsan jadwalaynta iyo kala horumarinta hawshu ay leedahay inta ay yaryar yihiin. ogow waxaa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteenna iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.